tilmaamaha iyo tusaalayaasha uu lahaa Thomas Sankara ayaan weli qeexidooda iyo tilmaamidooda ku guda jirnaa. inkastoo dunidu ay aaminsan tahay qof kasta oo garasho iyo garaad leh inaanu marnaba maankiisa hogaamineed iyo bini'aadanimo aanu saluugi karin, haddana waxay muujinaysaa marka hayaan dowladnimo lagu jiro waxaa jirta caqabado fara badan oo ay suuragal tahay in dadkaas iyo dalkaas iyo shakhsiyaadka hogaaminta ku howlanba ay la kulmaan, waana caado jirta marka siyaasadda loo yimaado. qaybtii saddexaad ayaanu wali dabcan rabnaa inaanu idiin soo gudbino annagoo dhexda uga jirna faallada iyo gorfaynta dhiganaha madaxdii la mahdiyay oo aanu laba qayb oo hore idiin soo gudbinay. haddana waa qaybtii saddexaad. waxaan hay Idris Iman halka kan oo Somali Freedom ku soo dhawaada sheekada. Bien, en tant qu'homme, je ne peux que m'émouvoir devant ces attentats qui créent tant et tant de désolation chez des êtres humains. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe, si imprégnées et si prétendantes de civilisation, posent et commettent et connaissent des actes qui sont... kaabayaasha nolosha iyo bulshada ayaanu qeexi doonaa marka aynu dib ugu laabano hogaamintii Thomas Sankara. inkasta oo madaxda dalalka ku gadaaman ay iska noqdeen kuwa aan ka soo dhalaalin ballamaha ay la galaan muwaadiniintooda, Sankara wuxuu qaaday jidkiisa gaarka ah dhowr barnaamij iyo mashaariic ah oo looga gol lahaa in dalka looga saaro faqriga iyo gaajada ayuu bilaabay. quudinta xagga cunnada, siinta guryo ay degaan iyo daryeelka xagga caafimaadka waxay ahaayeen mudnaantiisa ugu weyn marka aynu dib u qeexno hogaamintii Thomas Sankara. waqti dalalka kale ee Afrika qaarkood ay la daaladhacayaan cudurro, Sankara wuxuu hirgeliyay olole qaran oo muwaadiniinta looga talaalayo cudurrada dabeesha, jadeecada iyo gowracatada. ku dhawaad 2.5 milyan ayaana la talaalay muddo isbuuc gudihiisa. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO markii ay qiimeysay sida howlkarnimada leh oo mashruucan loo suurageliyay waxay dhambaal tahaniyad iyo bogaadin ah u direen hogaamiyihii beriga ee Sankara. ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshadana waxay ahaayeen waxyaabaha lagu xusuusto hogaamintii la mahdiyay ee Sankara. si loo xoojiyo shucuurta isdhexgalka bulshada, Sankara wuxuu bilaabay ciyaaro kala duwan oo isugu jira kubadda cagta, laliska, orodka iyo wixii soo raaca, wuxuuna muwaadiniinta ku dhiirigeliyay inay ugu yaraan toddobaadkiiba mar ka qayb galaan ciyaaraha kala duwan. isaga iyo saaxiibkiisa Blaise Compaoré waxay ciyaaraha kala duwan ee isdhexgalka bulshada u noqdeen hormuud. labaduba waxay si midaysan uga qayb gali jireen tartamada orodada iyo ciyaaraha kala duwan, mid ciidan iyo mid xaafadeedba. halku dhigoodu wuxuu ahaa maskaxda fiyow waxay ku jirtaa jir fiyow. adeegsiga baaskiiladu ma ahan oo kaliya arrin fududaysa dabcan orotanka xagga tartanka, waxay sidoo kale leeyihiin faa'iido caafimaad oo qofka adeegsada uu ka heli karo. waxaa sidoo kale intaas dheer waa gaadiidka kaliya oo marka laga yimaado noolaha la rarto saaxiib la ah deegaanka, kaas oo aan wax saameyn ah ku lahayn hawada sii xumaanaysa iyo isbeddelka cimilada ee adduunka maanta ka jira. mana ahan adeegsigiisa arrin la xiriirta saboolnimada. haddii aad aragto qof ku nool Afrika oo dhaqaale ahaan ku qanacsan inuu ku socdo baaskiilka, waxaa jira in kale oo ku nool dunida horumartay kuwaas oo iyaga oo heli kara gaadiid kale doorbida inay ku safraan bushkuleetiga. sababtuna waa saddexda faa'iido oo uu leeyahay qofka. midi waa inuu jirdhis u samaynayo oo dhabarka iyo murqihiisu ay xoogaysanayaan, midna waa inuu dhimo wasaqda ku furmaysa hawada, midna waa inuu ku gaari karo danihiisa si fudud, siiba marka uu joogo magaalooyinka ay ka jiraan ciriiriga xagga wadooyinka. yaabka jira wuxuu yahay in madaxda wadamada Yurub qaarkood la arko iyaga oo ku socda baaskiil marka ay ka soo rawaxayaan shaqadooda iyo aroortii kolka ay u jarmaadayaanba goobaha shaqada. dunida ninka cad, baaskiiladu waxay u arkaan gaadiid lama huraan u ah noloshooda, halka qaaradda Afrika baaskiilka loo arko huriweyta aan loo helin beddelkii looga maarmi lahaa adeegsigiisa. la dagaalanka nabad guurka iyo ololihii dhirbeerista waa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dib loogu celiyo mahdinteeda maamulkii Sankara.
isaga oo ku naaloonaya taageero shacab oo ay la garab taagan yihiin muwaadiniinta Burkina Faso wuxuu sees u dhigay mashaariic ballaaran oo dalka oo dhan ka hirgalay bartamihii 80-meeyada qaaradda Afrika waxaa ka jiray macluul iyo abaar daashatay nolosha dadyooga ku nool Sankara waa madaxweynihii ugu horeeyay ee bilaaba olole looga soo horjeedo nabaad guurka iyo xaalufka ku socda deegaanka isaga oo kaashanaya muwaadiniintiisa wuxuu abaabulay olole qaran oo lagu beerayo ama lagu talaalayo 2 milyan oo geedo ah oo ah olole nuuciisa kii ugu horeeyay qaaradda Sankara wuxuu aad uga walwali jiray halista deegaanka ku socota wuxuu ka qayb galay dhowr tallaabooyin oo ka dhan ah xaalufinta deegaanka si ololaha dhirbeerista qaran uu u noqdo mid buuqda wuxuu jeediyay mashruuc loo bixiyay dabcan waa hal xaafad oo leh cutub geedo ah hadafka laga lahaa mashruucan wuxuu ahaa in da'yarta ku nool xaafad walba lagu dhiirigeliyo dhirbeerista si ay u muujiyaan doonista la xiriirta ciribtirka ka dhanka ah xaalufka deegaanka ka jira waxaa fikirkan loo dhaqangeliyay in la dhiirigeliyo dhirbeerista meel walba oo dalka ka mid ah in laga bilaabo si loo dhibo halista ka dhalata dhir la'aanta iyo in sidoo kale la horumariyo wacyigelinta la xiriirta ilaalinta deegaanka muddo kooban gudaheed waxaa la suurageliyay dhul cagaaran oo awal ahaa ban gabaahiir ah oo aan hoy u noqon karin noolaha ku nool tani waxay keentay sidoo kale in cimilada deegaanka ay soo hagaagto roobabka ay u curtaan gu'ba-gugiisa ka dambeeya tallaabadaas dhirbeerista ah wuxuu Burkina Faso ka dhigay inay ka badbaadiyo nabaad guurkii ka jiray galbeedka Afrika 80-meeyada waxaa sidoo kale ay suurageliyay in la helo dal cagaaran oo ku dhex yaala duni gabaahiir ah oo saxaruhu u yahay gogosha qura oo ay gogladaan waxaa xusid mudan in sanadkii 1985 uu mamnuucay jarista dhirta la shito ama alwaaxda laga suubsado waxaana sidoo kale mamnuucista barbar socday olole wacyigelin ah oo dadka lagu fahamsiinayo halista ku jirta ficilkaas taas beddelkeeda wuxuu horumarin ku sameynayay adeegsiga gaaska si looga kaaftoomo dhuxusha in darteed dhirta loo jaro dadaalada loogu jiro dhiraynta kuma ekeen intaas oo qura waxaa kale oo feer socday ilaalinteeda sida inuusan dhaqso ugu baahin dabka badana kaymaha qabsada kaas oo dambas ka dhiga dhul dhan oo dhir la jiifay dayaca xoolaha ama daryeel la'aantooda ayuu si la mid ah aad ula diriray Sankara runtii wuxuu jeclaa inuu helo dal aan kaliya lagu karaamaynin dadkiisa hase yeeshee lagu xanaaneeyo dunyadiisa sugnaan la'aanta biyaha iyo halwareega socodkooda waxaa mar walba laga keenaa su'aal la xiriirta sida lagu xallin karo balse in yar ayaa ku guuleysata inay maareeyaan Sankara isaga oo og in biyaha wabiyadu ku fadhiyaan baahiyaha ugu weyn ee dadkiisa wuxuu sameeyay biyo xireenno dhowr ah oo loogu talagalay in lagu xadido mugga biyaha si loogu dheefsado howlaha guud iyo guryeynta magaalada caasimadda ah oo dadka meelo badan oo kamid ah ay degan yihiin xaafadaha isku raranta ah Sankara wuxuu bilaabay barnaamijka guryeynta guud wuxuuna sidoo kale dayactiray kuwa badan oo burbursanaa mana ahayn magaalooyinka oo kaliya kuwa laga sameeyay adeegyada danta guud maadaama ay adag tahay in meelo badan oo qaaradda ka mid ah lagu socdaalo Sankara wuxuu hirgeliyay mashruuc lagu sameynayo wadooyin isku xira magaalooyinka iyo miyiga fog wuxuuna isku xiray dhammaan gobolada dalka oo dhan mahad waxaa laga celin karaa doorka iskaa wax u qabso oo ay ka qayb noqdeen muwaadiniintiisa sugitaan la'aanta deeq caalami ah oo mar dambe soo dhacda wuxuu bilaabay mashruuc lagu dhisayo jid tareen oo isku xira magaalada caasimadda ah iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Manganis oo dhowr boqol oo kiiloomitir u jirta magaala madaxda wadanka tanina wax su'aal ah kama keenin haddii mar walba loo baahan yahay in lagu tiirsanaado deeq shisheeye kol haddii la isku geeyo xoogga iyo xoolaha yar ee la haysto waqtigaas dalku ma lahayn lacag adag oo ku filan mana jirin qalab casri ah oo wax lagu dhiso hase yeeshee waxay haysteen labadooda gacmood oo ay wax walba ku samaysteen dhammaan shacabka oo dhan ayaa qayb ka noqday dhismaha jidka tareenka dadku iyaga ayaa gacmahooda ku dhigayay biraha tareenka intii karaankooda ah Sankara wuxuu mar walba ku hal adkaa in kheyraadka dhulkiisa looga faa'iideeyo danaha dadkiisa si aan loogu tiirsanaanin gacan shisheeye wuxuu mar walba ku taami jiray inuu dadkiisa siiyo madax banaani dhab ah wuxuuna baray dadkiisa iyo bulshooyinka kale Afrika in ay wax soo saarkooda iyagu iska iibsadaan waxa halays u ahaan jirtay
qofka ku quudiya ayaa ah midka ku maamula marka waa inaynu meel iska dhignaa deeqaha naloogu yabo oo aan diiradda saarnaa wax soo saarkayna gaajadu waxay Burkina Faso ka noqotay taariikh hore iyo wax tagay tusaale ahaan 80-mayadii dalalka Saxaraha Afrika waxay celis ahaan 1700 kilomitir oo dalag ah ka soo saari jireen halkii hektar sanadkii 1986 Burkina Faso waxay soo saartay celcelis ahaan 3800 ilaa 3900 kilomitir oo dalag ah halkii hektar sababtaas awgeed Sankara wuxuu dadkiisa gaarsiiyay isku filnaansho xagga cuntada ah muddo ka yar 4 sano wax soo saarku kuma ekeen isku filnaansho xagga cunnada ah oo kaliya wuxuu gaaray heer dalka soo saaro dhar lagu sameeyay gudihiisa waxaana jira sharci dhigayay in shaqaale walba oo dawladeed uu soo xirto dharka dalkiisa lagu sameeyay dharka oo la dhihi jiray Faso Fani waxa sameeyay sancayaqaan u dhashay dalka kuwaas oo adeegsaday suuf ay beeralaydu soo saareen balse dadka oo jeclaa inay ku soo xaragoodaan dharka lagu sameeyo Yurub waxay boorsada ku soo qaadan jireen kuwa dalka lagu sameeyay Sankara wuxuu caan ku ahaa inuu booqasho kadis ah ama lama filaan ah ku yimaado xafiisyada dawladda marka la maqlo inuu ku soo wajahan yahay wasaaradaha dhammaan shaqaalaha dawladda waxay halhaleel ku xiran jireen dharkii looga baahnaa inay ku soo labistaan oo ah kan dhulkooda lagu sameeyay laakiin isaga ahaan waxay la ahayd mid uu ku dooqo ilaa iyo xitaa kala fadhiga ururkii midowga Afrika halkaas oo isaga oo xiran dharkiisa ku tilmaamay madaxda kale ee Afrika inay tusaalihiisa wax ku qaataan horumarka dhinaca sameynta iyo sancada dharka waxay ina xusuusinaysaa midii ka jirtay dalkeena bersamaadka xilligaas oo warshadii dharka Balcad ay soo saari jirtay dhar lagu sameeyay cudbi lagu beeray dalkeena 21 Oktoobar markii uu dhashay kacaanka ayaa lagu sameeyay horumarin ballaaran wax soo saarka warshadaha sanadkii 1971 waxay soo saartay 6 milyan oo yaardi oo dhar ah warshadu waxay ka qayb gashay horukaca dalkeena waxay dharka u diri jirtay wakaalada ganacsiga ee dawladii kacaanka waxay ku tala jirtay inay sii horumariso oo la sii cusboonaysiiyo hawlaha warshada si dalka oo dhan ay uga arad bixiso xagga marashada warshada waxaa la sameeyay sanadkii 1966 waxay sameyn jirtay kaaki Mareykanka baafto marbuuc iyo dhar kale oo midabyo kala duwan oo qurxoon leh si kale warshadu waxay wax ka qabatay dhibaatadii xagga shaqo la'aanta ahayd ee haysatay dhalinyarada Soomaaliyeed muuqaalka kan waxaynu ku qeexaynay oo aynu dib uga soconay hogaamintii hirgashay ee Thomas Sankara iyo dalkii Burkina Faso waxaa jirta sheekooyin badan oo daahsoona oo aanu dib u jaleecnay si dad badan oo aanan wax badan kala soconin ay maankooda uga helaan xogo ku filan oo dalkaas iyo hogaamintiisiiba wax ka sheegi karaan waxaan ahay Idris Maxamuud Iimaan qaybtii saddexaad ayaan soo koobaya waxaana kala socoteen Somali Freedom Cabdiraxmaan Qariif ayaa dhanka kaamirada iga caawiyay aniga isagoo wada jirnay waxaan idin leenahay nabadgelyo